بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هن صاحبيال meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu maantayto oo aynu ku sugannahay xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed farciida Galmudug ee degmada Cabudwaaq aynu ugu qabanayno dood wadaag qaar ka mid ah musharaxiinta guddoonka ardayda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo isugu jira musharaxiin u tartamaysa xilka guddoomiyaha ardayda iyo waliba musharaxiin u tartamaysa xilka guddoomiyaha ku xigeenka guddoonka ardayda ayaa sanad walba waxa loo qabtaa doorasho ayadoona musharaxiinta halkaasi ku bartamaysa ay ardaydu codadkooda siiyaan haddaba maanta toddobaadkii wuxuu ku saabsanaan doonaa guddoomiyaasha iyo waliba guddoomiye ku xigeenada musharaxiinta u sharaxan oo aynu halkan ku weydiin doonaa su'aalo ay ku saabsan waxyaabaha laga rajeynayo waxqabadyadooda iyo taariikh nololeedooda sidoo kalena ardayda halkan ku sugan oo ah madal hool ah ay ayaguna dhankooda weydiin doonaan su'aalo waxaan jecelahay inaan ku hormaro marka koobaad aan soo dhaweeyo musharaxiinta guddoonka ayadoona aan u laaban doono guddoomiye ku xigeenada waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo ama aan xuso marka koobaad intaanan daafran barnaamijkayga musharaxiinta u tartamaysa oo 6 xubnood ah 3 u tartamaysa xilka guddoomiyaha halka 3 kalena ay u tartamayaan xilka guddoomiye ku xigeenka musharaxiinta xilka guddoomiyaha u tartamaysa waxa koow ka ah Xamdi Cabdisalaan Aadan oo ka tartamaysa kulliyadda caafimaadka iyo sidoo kale Cabdiqani Cabdixakiin Maxamed oo ka tartamaya kulliyadda culuumta caafimaadka iyo Maxamed Cabdi Dirir oo asna ka tartamaya kulliyadda waxbarashada sidoo kale xilka guddoomiye ku xigeenka ayaa waxa tartamaysa 3 musharax oo haween ah oo kala ah Aamina Faarax Axmed oo ka tartamaysa kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka hodan Badal Maxamed oo ayadana ka tartamaysa kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka Sawda Xasan Muuse ayaa ayaduna ka tartamaysa kulliyadda daraasaadka islaamiga iyo shariicada waxaan jecelahay inaan marka koobaad intayna barnaamijkayga aan guda galin aynu halkan ku soo dhaweyno musharaxiinta ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan mikrafoon ku soo dhaweeyo Xamdi Cabdisalaan Aadan oo ka tartamaysa kulliyadda caafimaadka Xamdi soo dhawow waxaan codsanayaa in shacabka in ma garanaysaa uusan ku habooneen xogaa barnaamijka Xamdi soo dhawow waxa ku hor fadhida ardaydii jaamacadda oo aad ka rabtay codkooda sidoo kale waxa ku hor fadhiya maamulka jaamacadda iyo ardaydii Xamdi markii la dhaho horta Xamdi waa tuma waa qof noocee bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn waxay mahad sugnaatay horeysay dambeeytaba Allah subhanahu wa ta'ala mar kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulkayga sharafta leh oo ugu horeeyo kusmaha agaasimaha madaxa akademiyada isku xirayaasha kulliyadaha qaybaha kale nagala jooga maamulka naadigii hore iyo guddiga doorashooyinka iyo dhammaan marti sharafta kale idaacadda tiimka nagala jooga mooriyaasha dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bacda salaan Xamdi magaceeda oo saddexan waa Xamdi Cabdisalaan Aadam waa gabar ku dhalatay degmada Cabudwaaq ku barbaartay waxna ku baratay ilaa yaraanteedii sanadkii sanadku xasaasi waay adigu sanadii 9-meeyadii runtii Xamdi hadaan dhahno Xamdi waa tuma laba kala qaadayna Xamdi waa dhalashadeedii barbaarinteedii iyo waxbarideedii iyo Xamdi shakhsiyadeedii markaan kala saarno Xamdi waxa wax ku baratay dugsigeedii hoose dhexe sare ilaa heerka jaamacadeed Cabudwaaq
waxay sidoo kale runtii inteeda ugu badnayd waqtigeeda soo gelisay xamdi oo ahayd qof mataqaanaa u ololeeya ama ka shaqeeya arrimaha bulshada hadday tahay degmo iyo hadday tahay gobol iyo hadday tahay Soomaali idilkeed meelna kama socneen ilaa cirifka koonfureed ilaa cirifka waqooyi shakhsiyad markii la dhaho xamdi waa gabar dherer ahaan markii la dhaho dhererka aan dheerayn gaabnayn midabka maariinka masciideedka la dhaho culayska naag aan buurnayn caatan ahaynoo meeshii gabar laga rabay ah runtii gabar furfuran bulshadeeda inay u shaqayso jecel aad mataqaanaa u aqof social ah intaasaan ku soo koobaya mahadsantahay xamdi waxaan jeclahay musharax walbana si la mid ah xamdi inuu u soo koobo waxaan jeclahay siiya markaana maxamed cabdi dirir oo asaguna ka socda kuliyadda waxbarashada kamidana musharaxiinta gudoomiyaha cabdi soo dhawow bal maxamed bal waa kuwa maxamed bismillaah awalan maamulka jaamacadda ugu horeeyo agaasimaha oo ah madaxa akademiyadda maamul xafiisyada madaxda kuliyadaha gudoomiye hore naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed farceeda Galmudug guddiga doorashooyinka oo xaqiiqatan hawl aad u muhiimsan qabtay oo ku amaanayno wariyaasha dhammaan ardayda oo maanta ah xildhibaano dhageysanaya musharaxa ay dooran laayeen dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib haddii aan ka jawaabo su'aasha la weydiiyey oo ah maxamed waa kuma maxamed sidaad ogtiin magaciisa dhammaystiran waxaa waaye maxamed cabdi dirir taariikh nololeedkiisa haddaan ka hadalno waxbarashadiisii ha noqoto dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa heer jaamacadeed oo maanta joogo waxaan ku soo bartay magaaladan gudaheeda waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ka soo shaqaysay in badan bulshada dhexdeeda xilladii ay soo martay magaalada caqabadaha badan ay ka jireen waxaan jeclaan lahaa inta inaan ku soo koobo su'aashaas aad baa mahadsan tahay waxaan siinayaa markaana cabdiqani cabdixakiin maxamed cabdiqani soo dhawow mar labaad waxaa codsanayaa in dadka dhallinyarada ay banalkani ama doodani ku sugan ay sacabka ay joojiyaan maadaama ay tahay dood qof walbana boosishikiisa iyo doorkiisa uu ka qaato bal soo dhawow cabdiqani bal waa kuma cabdiqani bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale noo ogolaaday maanta inaan meeshaan ku kulanno bacdama waxaan salaamayaa madaxda sare ee jaamacadda oo ugu horeeyo agaasime ku-xigeenka jaamacadda mudane filig madaxa akademiyaadka ustaad ibraahim sidoo kale madaxa kambaska ustaad nuurudiin sidoo kale madaxa logistikada mudane cabdirasaaq madaxa arrimaha bulshada mr cumar waxaan salaamayaa madaxa dhiinka kuliyadda caafimaadka ustaad cusmaan sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiyihii hore ee mudane axmed naaji gudoomiyaha doorashada iyo dhammaan wariyaasha iyo kasoo qaybgalayaasha waxaan ku salaamayaa ardayda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ama bacdu magacaygu waa cabdiqani cabdixakiin maxamed ku dhashay degmada caawdaaq wax ku bartay dugsigiisa hoose sare haddana ka barta jaamacadda aad baa u mahadsan tahay markaana waxaan u gudbayaa dhinaca musharaxiinta u taagan xilka gudoomiye ku-xigeenka oo 3 xubnood oo haweena ay positionkaasi u tartamayso waxaan jecelahay inaan aamino faarax axmed oo iyaduna ka tartamaysa ama ka socda kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka inaad aamino soo dhawow markii aad bulshadan iyo dadkan ka hor fadhiya isbedel aamino horta waa tuma iyo inta ku daawanaysa bismillaah أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى ما هذا سكلا مدشان قروح بدن سوق كان كيني فحن سلام يا دمان مامل كجامعة مامل كلية مدح كليتها مدح نادية صحافة مشارحين تأرضية دمان لما وحنا كسلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد سلام آمنو تاريخ نولد كذا أو قابن هدي أنا كان كشيء مقعيقو أو صدحان وآمنو فارح أحمد كل اللي تدق مد عوضة كنا بربارتي وحبرشة ذا دكسيوس لحق إلا يسر إلا يهرج معدنا ما أنت كودا sanadku markuu ahaa 2020kii ku soo biirtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dhigata daraasaysan kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha aad baa u mahadsan tahay dhanka kalena waxaan jecelahay inaan mikrofoonka ku dhiibo hodan badal maxamed bal ayaduna siday bulshada hor fadhida isku badho marka hore hodan waxay tahay ayadoo cod kor qaadiyo qof walba bismillaahi raxmaani raxiim
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أرديدا iyo maamulka iyo macallimiinta guddiga doorashada naadigii hore ee ardayda jaamacadda Musalim Maaliyeed musharaxiinta saxaafadda dhammaantiin waan salaamayaa adeeg jawaabo hodan waatuma ugu horeyn magacayga waa hodan bedel maxamed cali ku dhalatay degmada Caabudwaaq dugsigii quraanka waxaan ku soo qaatay beled xaawo gobolka Gedo iyo bilowgii iskuulkaba mar kale waxaan dib ugu soo laabtay Caabudwaaq oon si maxaan ku raa toos uga bilaabay iskuulkaygii dugsigii hoose dhexe waxaa ku qaatay iskuul oo markaas iskuuladii ka shaqeynayay degmada kuwii ugu horreeyay ahaa ilaa sideedaadkii aan ku gaaray 17 waxaan mar kale dib ugu laabtay koonfurta Soomaaliya Muqdisho ayaan ku soo qaatay dugsigii sare mar kale haddana Caabudwaaq waan ku soo laabtay si aan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed farca Galmudug aan uga sii wado waxbarashadeydii 2020 October 26 waxaan ku soo biiray jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo aan markaas ka mid noqday ardaydii ku guuleystay inay soo gudbaan imtixaanka qabuulka gaar ahaan waxaan ku sii biiray kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha intaasaan ku soo gabagabeynaa aad baa u mahadsan tahay waxaan jecelahay markaana inaan dhankaas iyo aado Sawda Xasan Muuse oo iyaduna ka mid ah tartamayaasha u tartamaya xilka gudoomiye ku-xigeenka Sawda soo dhawow Sawda waa tuma bal adoo isbaraya dadkan iyo waliba martida ku dhageysanaysa maanta ama aad hor fadhiday inta ku daawanayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرتي شرفت معلمين تمام الكارديدا دمان وسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مقعي وسودة حسن موسى وترتميسا قدومي كحين كان هذه أرضية جامعة أمد الصومالية فرع قلمذوق إن أهنا إن كان صعوته كلية شريعة waan dareemi karaa arday badan halkaan fadhida fajacay la yaab ayay la tahay in maanta u tirsamo anoo ka socda kulliyadda shariicada saasay tahay in ardayda qaar waxay aaminsan yihiin kulliyadda shariicada dhiganaysa inay shariicada wax badan ka xanibayso laakiin taasi ma aha waa fikrad qaldan shariicada dhiganaysid wax kasta waa qabsan kartaa anoo qodobka ka duulaya markasta kulliyad kasta oo aad dhiganaysid waxa fiican adoo kulliyad kasta dhiganaya inaa balance ku ahaato dhan maadiya dhan diiniba ardayda qaar hada waxaan ogahay markii ay iswareysteen shariica wax saa loo qoro yaqaan wax saas loo qoro ma yaqaanaan maxay iska soo sharaxayaan laakiin taas ma aan teeda kale ardayda waxay ku leeyihiin nimay idinku anaga fiican tihiin maxay kaga fiican adaadadiina waxay ku leeyihiin idinku markaste aayad quraan salliga nabiga in kama maqna laakiin anagu waxa laga yaabaa jimcada kaliya inaan ku salin nabiga taasina ma fiicna intaas hadaa uga baxo aan inii sheego taariikh nololeedkayga magacaygu waa Sawda Xasan Muuse ku dhalatay degmada Caabudwaaq gaar ahaan xaafadda waa bari sanadku markuu ahaa 2002 marital status kana lagama maarmo single musharaxad madax bannaan musharaxad madax bannaan goobta waxbarasho 2020 waxaan ku biiray jaamacadda ummadda Soomaaliyeed haddana aan wado sanadii labaad 2019 ilaa 2020 waxaan dhameeyay dugsiga sare aan ka dhameeyay iskuulka Shira Jaamac Ahmed Primary and Secondary School 2017 aw 2019 waxaan dhameeyay maad culumta shariicada haddana aan dhameeyay 2019 up to 2021 up to still waxaan wadaa maad علومتا عافيمادكا ee Midnimo Health Science College qaybtiisa Nurse and Nutrition aad ma hadsan tahay waan u mahad celinayaa musharaxiinta inkastoo ilaa hadda uu jiro hal musharax oo sheegay inuu baadiye ku dhashay waxaan jecelahay inaan u soo laabto musharaxiinta xilka gudoomiyaha aan ku bilaabo waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad ardayda iyo waliba dadka kala martida ay halka ku sugan in mar walba la isdhigaysto oo maqalka la isamahiyo حمدي عبد السلام آذن أو حلك قدوميها أو شرحنا يا أصل لابنيا حمدي مرة بعد سودو وان برتي حمدي قف كويا شخصية ديسة
qof walba markii uu position ama goob ama garanaysaa jago isku soo sharaxayo inta badan waxbaa ku dhaliyo xamdi ahaan maxaa kugu dhaliyay inaad isku soo sharaxday xilkan gudoomiyaha naadiga ardayda mar kale waa ku mahad celinaya mahadow su'aashaada quruxda badan runtii aniga xamdi ahaan isku soo sharaxa booskan waxa igu dhaliyay kadib markii aan arkay jaamacadda nidaamkeeda in loo baahan yahay in la maamulo ardayda tirada badan oo runtii aan laga maarmin inay yeeshaan gudoon xilligeedina la joogo markii aan arkay inay jirto baahiyo badan oo ka jirta jaamacadda haday tahay mid ardo iyo haday tahay mid mataqaana guud oo dhismayaasheeda ah markii aan arkay in loo baahan yahay in loo shaqeeyo ardayda oo loogu shaqeeyo hab nidaam aqoon cilmi iyo khibradda aan looga maarmayn markii aan arkay in aan laga maarmayn in la isku xiro jaamacadda iyo deegaanka markii aan arkay in aan laga maarmayn in lagu xiro jaamacadda inta ku xayndaaban haday tahay faracyada kale iyo xarunta dhexe markii aan arkay caqabadaha jaamacadda haysta wax walba ay ahaadaanba fursadaha noocaas oo runtii ii muuqday ayaa igu dhiiriyay aniga xamdi ahaan inaan isku soo taago booskan waxyaalaha kale oo igu sii dhiirigeliya waxaa ka mid ahaa tan iyo maalinkii la dhagax dhigay jaamacaddan ummadda oo la jaamacaddan ummadda waxay noqon kartaa jaamacad institution dawladeed oo wax lagu barto oo maanta laga joogo xilli 7 sano ku dhawaada oo ay soo saartay kaadiriin badan oo macallimiin qaarkood yihiin oo ka baxeen jaamacaddan ardadiina ka mid ahaayeen intaas waxaan u soo ahaa goobjoog dib iyo dheef iyo wax walba ay tahayna garabkeedaan ahaa maalin kama seexan hawl ka socotay maalinna kama nasan shaqo ka socotay waxyaalaha igu dhaliyo kale waxa ka mid ahaa saddexdii naadi ee soo martay waxaan ahaa qof la shaqeynaya intaas walow xubin aan ugu magacoonaan ay jirin laakiin aan ula shaqeynaya si volunteer xamdi inay la shaqeysay naadiga jaamacaddana ay ka qabatay waxyaalo badan oo muhiim ah oo markhaati madoonta ah maxaa u diiday inay isku daydo inay hor imaata ardadaas in iskuna dayda inay mas'uuliyaddeeda qaado markaan arkay runtii waxyaalahaas oo isbiirsaday ay u muuqatayna inaan la iiga maarmay booskaas khibrad ahaantayda caqli iyo cilmi iyo talo tusaale waxaan ku darsanayaba ayaa igu sababtay inaan imaado halkan iskuna soo sharaxo runtii waa tahay xamdi aad baa mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan u wareego dhinacaasi cabdiqani cabdiqani mar kale soo dhawow waxaad sheegtay inaad tahay nin arday ah oo jaamacaddan ardaydeeda ka mid ah haatanna aad garowsatay inaad xilkan isku sharaxday ma jirtaa marka laga soo tago inaad positionkan hadda u istaagtid wax waaye aragnimo hore oo shaqo ah ma leedahay iyo maamul bismillaahi raxmaani raxiim mudane mahad waa mahadsan tahay su-aashaada quruxda badanna waxaan kaga jawaabayaa haa aniga horta waxaan ahay kaabgalaaska tiim galaaskayga sidoo kale waxaan xubin ka ahay naadiga ardayda kuliyadda caafimaadka xubnaha ugu fircoon sidoo kale waxaan la soo shaqeeyey naadiga ka horreeyey waxaan xubin muhiim ka ahaa xubnihii ka shaqeynaya arrimaha tusaaloo kale blood groomingkii sameynayay sidoo kale ka qayb qaatay activity badan oo ay ka mid tahay barnaamijkii qashin aruurinta jaamacadda iyo jaamacadda bannaankeedaba waa tahay aad baa umahadsan tahay maxamed baan siinayaa asagana markiisa mikrofoonka maxamed nin ardaya tahay waxbaad barataa jaamacaddaas aad dhigataa waxa weeye waqti ay kaa maqsneen inaad xilka guddoomiyaha aan ognahay shaqada iyo weliba hawsha u taalla inaad u soo istaagtid adigoo magaranaysaa ardayoo haatan culays badan ku saarneen maxaa kugu kalifay maado waa mahadsan tahay waa su-aal aad u muhiim ah waxay u kalifay markaa arkay duruufaha ka jira jaamacadda oo u baahan tahay maamul ka dhaqaajiya meesha ay hadda taagan tahay la jaan qaado siyaasadda cusub ee magaalada ka dhalatay in aan aniga laftigaygu aan ka qayb qaato oon ku xiro siyaasadda cusub ay hore uga qaato sidoo kale waxaa igu dhaliyey haddaan horey taariikhdeeda u galo waxaan ka mid ahaa markii waxbarashadii dugsigii aan ku jiray iskuulkaygii waxaan ka mid ahaa ardaydii iskuulka soo hogaamin jirtay 2 sano dugsigayga hoose oo dhexe ayaan soo qabtay 4 sano u dambeysay mar aan gudoomiye ku-xigeen ka soo noqday ardaydii mar aan soo noqday madaxa wacyigelintii marka waxaan isku arkay nin maanta buuxin kara positionkaas oo ah in 450 arday ku dhow uu maanta ku hogaamiyo qayrkooda inay la tartamaan sidoo kale waxay igu dhalisay in aan ka shaqeeyo inaan isku xiro jaamacadda insha Allah ta'ala faracyadeeda ilaa qaybta dhexe aan si guud isku barno jaamacadda guud jaamacadda ummadda Soomaaliyeed arday dhigata maadaama ay yihiin arday Soomaaliyeed oo bulshada u soo baxaysa mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan dhinaca gudoomiye ku-xigeenka aan u gudbo musharaxiinta u taagan wali waxaan jecelahay hodan inaan siiyo mikrofoonka hodan waxaa tahay haween waxaan ku soo istaagtay xilkan gudoomiye ku-xigeenka
maxaad is leedahay waad ka bedeli kartaa oo mas-uuliyiintii kaa horreysay oo xilkan soo haysay way ka bedeli waayeen ama aad ku soo kordhin kardhaa? bismillaah waa mahadsan yahay mahad. naadiyadii iga horreeyey intaan hadda aana kan u soo tartamin ka shaqaynayay naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wax fiican oo muuqda oo la arkay way qabteen. anigana inaan intay qabteen ku sii wado oo sii hormariyo in oo aniga hadda iga dhex guuxday oo igu kaliftay inaan musharax gudoomiye ku-xigeen aan noqdo aan ku sii daro anoo hadda wada sheegaynin oo wada tirin karin waqtigan ugu yar dartiis haddaan 2 iyo 1 ka dhaho waxyaabaha ay qorshaysan inaan ku daro naadiga ardayda jaamacadda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah maadaama aysan hadda naadiyadii hore u shaqaynayay iyo kuwa hadda joogaba aysan lahayn kayd dhaqaale inaan u sameeyo financial resource ama kayd dhaqaale oo ardayda naadiga u laabtaan oo naadiga bas aan ahayn guud ahaan ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay u laabtaan oo haddii dhacdo ay ka dhacdo ama tusaalahaan arday ay ku timaado dhacdo geeri ama xanuun ama inuu khidmadii jaamacadda ay u gamisay oo kale inaan kaydkaas ka caawino. waxaa kaloo ku sii darayaa inaan sii hormariyo nadaafadda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed farceed Galmudug. aad baa u mahadsan tahay hoodan. waxaan jecelahay inaan siiyo ayadana aamina soo dhow marka leeto muxuu yahay qorshahaaga degsan ee aad wax uga qabanaysid ama wax uga bedelaysid naadiga ardayda iyo waliba jaamacaddaba? bismillaah waa ku mahad celinayaa su'aashaad ay weydiisayna waxaan rajaynayaa sida quruxda badan inaan uga jawaabo. qorshaha ii degan su'aashaada markaa u guda galo qorshaha ii degan ama waxa maaragtay maanta hamiga aan ka leeyahay naadiga maanta gudoomiye ku-xigeenka naadiga ardayda haddaan ku guulaysto way badan yihiin dhammaantoodna haddaan dhaho maanta xabad baa u sheegayaana dabcan waqtigu nooma saamaxayo. qodobada ugu muhiimsan oo aan ka musharax ahaan ka aamin ahaan aan jeclahay inaan diiradda saaro ama aan hadda idinla wadaago si hordhaca waxaa iga qorshaysan jaamacadda maadaama aan ahay arday muddo 2 sano joogay jaamacadda waxyaabo badanna u soo joogay baahiyaha ardayda iyo baahiyaha waxyaabaha ardayda u baahan yihiin ka warqaba. waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay wax ka bedelo qodobo hore oo la soo qabteen wax ku daro kuwo cusub oo wali aan jaamacadda laga hirgelin naadiga u hirgelina inaan ku daro. waxaa ka mid ah qodobada hirgalay isku xirka ardayda iyo maxaa la dhahay maamulka. taasi waa muhiimadda ama qorshaha ama shaqada ugu weyn oo naadigu qabanayo. markii naadiga la dhaho naadigu waa arday ka kooban dhammaan kuliyadaha jaamacadda waxaana maaragtay ku midaysan kuliyad walba xubin baa uga jirta ama 2 xubnood ama wax ka badan. marka waxaan jeclaan lahaa maadaama ay naadigaasu ay qaban doonaan shaqo oo kuliyad walbana ay naadi gaarkeeda u ah oo iyadu maaragtay u shaqaysa danaheeda gaarka uga shaqaysiyo horumarkeeda ay samaysan doonto inaan isku xiro naadiga kuliyadaha naadiga maxaa la dhihi jiray ardayda oo weyn iyo maamulka. aad baa u mahadsan tahay hoodan. waxaan jeclahay inaan sowdo siiyo sowda soo dhawow qodobo badan baa kuu taxansaan filahayo oo waxqabad ku ah inaad qabateedada xilka ku guulaysto. muxuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee haddaad positionka gudoomiye ku-xigeen ku guulaysatid aad jeceshahay inaad jaamacaddan ka qabatid? qodobka ugu muhiimsan horta qodobo badan baa ii degsan laakiin midka ugu muhiimsan waxay tahay inaan sameeyo cagaarinta jaamacadda in ardayda sanad dugsiyeed kasta waxaa soo baxda arday cusub loo sii diyaar garoobo oo fasalaan ku filan loo sameeyo isku xirka jaamacadda iyo deegaanka kuurgelidda baahiyaha ardayda waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma simin 5 farood. ardayda qaar baa awooda khidmadda jaamacadda qaar baa awooda khidmadda laakiin aan ku dari karin qarashka baska qaar baa labadaba awoodin aan baahiyahaasna dhexda u xirto. ilaahay subxaanahu wa tacaala igu soo saaro xilkan.
aad baa u mahadsan tahay waxaan weli ugu guda jirnaa saaxiibayaal barnaamijka dood wadaagga ah ee aynu u hayno ama aynu u qabanay maantayto ardayda ama musharaxiinta u tartamaysa xilka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ee naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed farcida Galmudug ee degmada Cabudwa waxaan jecelahay mar kale inaan u soo laabto musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha qaasatan waxaan rabaa inaan u soo laabto Cabdiqani Cabdixakiin Cabdiqani mar kale soo dhawow waxaad sheegtay in waxyaabo badan iyo qorshayaal badan aad ka leedahay waayo aragnimada aad leedahay haddii maanta ilaahay xilkan kugu gooyo gudoomiyaha ee aad goobaysid muxuu yahay qorshahaaga iyo hadafkaaga kaaga degsan inaad jaamacaddan waqti kooban ama muddada sanadka aad haysa kaga beddeshay bismillaahi raxmaani raxiim mudane mahad aad baa u mahadsan tahay qorshayaal badan baa jiro oo iga degan oo ay ka mid tahay inaan samayno tartan suugaaneedyo iyo tartanka suugaanta iyo qoraalka annagoo kor u qaadayna afkeenna hooyo sidoo kaleeto waxaan samaynaynaa barnaamijyo badan oo ugu horeyso in ardayda waxbarashada ay jaamacadda ku bartaan ay dhex geeyaan bulshada aan annaga qaadno afkaartaas oo aan dhex geyno sidoo kaleeto waxaa jirto baahiyo badan oo ardayda ay qabaan in guddigeenna in aan ka qabanno baahiyahaas ardayda aan tixgelinno aan waxyaalo badan ka qabanno waa tahay aad baa u maastay maxamed baan jecelahay markiisana inaan siiyo maxamed waad ka hadashay waxqabadkaaga iyo qorshayaashaada inta badan ma jirtaa haatan oo aad u soo istaagtay xilka gudoomiyaha markii laga soo tago horay wax shaqooyin ah oo aad ula soo qabatay naadiyadii ardayda ee horay u shaqayn jiray waa su'aal aad u muhiim ah haa way jiraan oo in kastoo aan xubin ka noqon maamulkaas laakiin waxaan ka mid ahaa ardaydii badanaa u soo jeeday har iyo habeen in qorshaha naadigaas uu fulo waxqabad walba ay muuqdaan aan ka dhex muuqday maxamed xamdi baan jecelahay ayadan inaan markeeda siiyo xamdi qorshayaashaada iyo taariikhnololeedkaaga dhinacyo badan waa taabatay laakiin marka intaas laga soo tago ma jirtaa waxa waaye aragnimo ah ka xamdi ahaan oo shaqooyinkan aad hadda u tartamaysid oo naadiga ardayda aad u leedahay ma jirtaa mahadoo aad u mahadsan tahay inaan mar kale isiiso fursad kale runtii aadna kaga mahadcelinaya su-aashaada quruxda badan xamdi ahaan sidaan hore usoo sheegay waxaan sheegtay inaan jaamacaddan intaan joogay iyo intaan mataqaanaa joogay gobolkan ama degmadanba wixii ugu badnaa oo aan gelinaya ay ahayd inaan u shaqeeyo dhinaca wanaagsan loogu shaqeeyo ummadayda runtii intaan joogay jaamacaddan 3 sano 3 naadi ee soo martay intaba waxaan la ahaa qof la shaqaynayay laga soo bilaabo gudoomiye axmed cabdi muuse gudoomiye faarax iyo gudoomiye axmed naaji runtii intaas waxyaalihii noo soo qabsoomay wanaagsanaya haddii gudoomiyeyaashaas aysan haysan lahayn tiim badan oo aan ku jiray aan wax badan la qaban lahayn dadaal badan iyo garab iyo sacaawin badan ayaa halkaa lagu imaaday waxyaalihii aan ku guulaysanay runtii waxaa ka mid ahaa oo aan kala soo shaqeeyay naadiyaashii hore markaan u barbardhiga midda jaamacadda barnaamijkii ahaa afurinta oo runtii lagu afurinaya dadka masaakiinta oo ku nool magaalada ilaa 100 qoys ilaa 200 qoys dad gaaraya ayaan afurinay una samaynay afurin bishii ramadaan oo dhan aan ku soo jeednay oo uga tagnay shaqooyinkeennii iyo nolosheennii kale waxyaalihii kale noo qabsamay waxaa ka mid ahaa cagaarinta jaamacadda oo runtii qaybta ugu weyneed aan ka qaadanay waxyaalihii kale noo qabsamay waxaa ka mid ahaa raadintii ardayda ayadoo la tegay ilaa galmudug geeska gees iyo baran oo ah xarunta faraca iyo xarunta dhexe xarunta dhexe jaamacadda halkan faraceeda marka laga reebo Cabudwa qaybaran waxaana ah xarunta dhexe safarkii barameed oo runtii ugu kurgalayna arrimaha jaamacadda arrimaha mataqaanaa isdhexgalka oo ahay doorka ugu weynaa waxyaalaha kale oo aan isleeyahay naadiga intaas joogtay xamdi ahaan garab ahaan iyo gaashaan ahaanba adiga saaxiibadaadiiba waad ka geysateen waxaa ka mid ahaa barnaamijkii mashruuca aan ku abaabulnay gabdho 20 gaari oo badankood halkan fadhiyaan oo u bixinay Marwa Organization oo aan ka mid ahaa dadkii mataqaanaa ugu macquulsanaa markaas oo arrintaas hawsheeda iyo maamulkeedaba gacanta ku hayay runtii jaamacadda ummadda markii la dhaco caawa xamdi ahaan haddaan xilkan qabtan ku guulaysto waxaan ka shaqayn doonaa wixii aan sheegay oo aan hore u sheegay laakiin waxaan rabaa inaan uga tago magac iyo maamuusi shaqo runtii aniga waajib u ahayd mashruuc qaadanayay lacag dhan 150,000 ayaan qayb ka noqon inaan u keenno jaamacadda ummadda Soomaaliya waana waxaan maanta ku faraxsanahay inaan dhaxalkeeda uga tagay ama aan u noqdo maamul ama aan u noqonay mashruucaas wuxuu daarnaa 3 qodob
in la geliyo solar maktabadan hadda aan ku jirno oo runtii ku cabanayna gabdha ahaan kaga cabanayna hay'ado badan oo international oo kamid yihiin IOM iyo hay'ado European Unionka inay naga saacidaan inaan gabdhuhu habeenkii ay u baahan yihiin inay imaadaan jaamacadda wax bartaan mugdiga barnaamijka cabashadaas uu noo hirgalay waxaan ku helnay barnaamij matching grant waxyaalaha kale noo qabsan waxa kamid inaan keeno greenhouse-kii oo la rabo jaamacadda ummadda inay yeelato beer u soo saarta dalag gabdhahan shaqo abuur u noqota iyo wiilashaba iyo dhammaan maamulka oo jaamacaddii geeyna mataqan waxyaalaha kale waxa kamid ahaa runtii maanta waxa ugu muhiimsan aan dhihi karno raadintii ardayda meel walba oo loo galo har iyo habeen baa loo soo joogo marka ma soo koobi karo waqtiga aad ii ku dhacaya laakiin waan jecelahay marka la fursad inay soo noqoto si aan inta u fahmo وبركاته مقعي هو عبد الله داير فرح أهنا قدوميها أرضية كلية كمبيوتر ساينسكا waxaan rabay inaan weydiiyo waa salaamay horta dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladan iyo musharaxiinta iyo ardayda markaas ayaguna u taagan musharaxiin baarlamaanka oo markaas la weydiisanayo codkooda waxaan rabay inaan weydiiyo dhammaan dadka meesha fadhiya musharaxiinta hal su'aal oo dhex dhigo waxaa jirta baahiyo ka jira jaamacadda oo fara badan haba ugu horeyso hawsha baska oo hadda ka hadli rabo waxaa jira in jaamacaddu ay saad uga fogtahay degmada dhalinyartuna ay ka timaado xaafadaha ugu dambeeya ee magaalada marka waxa idin weydiin lahaa waxaa jiray ardayda idin ka horeysay oo ahaa hormuudka jaamacadda in de markaas ay isku hayeen baska hawshiisa iyo ardayda sida u xiriir lahayn maadaama ay jaamacaddu kansashay baska maxay tahay marka qorshaha siyaasadeed ama midka qarasho idinkaga degsan hawsha baska maadaama baskuna hadda waxa weeye ku jiray hawl isbuuc dhan markaas u yaalay hallow haddana aan la isku sii haleyn karin dhalinyartu markii la weydiiyey lacagtiina ay dhaheen annagu bas aan la isku haleyn karin lacagtood kuma bixin karno maxay tahay qorshaha idinkaga degan markaas oo aad hawsha baska aad ku dabari kartaan assalaamu calaykum waraxmatullahi السلام بعد المشاركين طبعا الوقت حرر هذا ويديو سؤال شخص مهم رئيس تم أصحابك ولا جيسان اللي بيقولون ولا يمكن دوره ولا اسمه درسنا سؤال شخص حرر إلى ويديو لما أنتم مشاركين هذا يقدمون بيان بيان جامعة سيدا أصول هيبة ودورشديس أفراد بعدين وهل كان نقطة قبل أيام كان في المكان أصحاب هذا إنت فريضة بدل كل حاجة سعودية مشاركين كمان يدور شوي من ضمن كل سؤال شربينا فيديو يا أصحاب كانوا كل دول من هذيك سعودية مشاركين بدل يقدروا بدل وتصاب احتلالها أين بعد كل يقدر تيجي ميراث سعودية حرب أين فيديو متشرع واحد يومياش اللي صار سنة اللي بقول سديت وانتي دور شري وجود إلا لو كل يوم قراتني لهذا قفوا بالله كل يوم خيار بدنا نروح مريان إلى إنسان ساسا قبلنا يوم بقى ما ترى واحد هكذا ما يبغى عليه جامعة ولا مكتبة ولا ممرات أنت ناديها وماشي صامت ما يسمعين وقف كي ماشي مقصود يعني تحسا يبغى في صام حربة وحسن جامعة النادياش اسمه قبلنا هل يلا بسم الله الرحمن الرحيم معي يوسف مامورات جامعة من أحداثيها أبدأ شرحيتا وبعيدا تمام صلاة الإسلام على ذلك ويتعالى وبركاته السلام سؤال مامورات سؤال شخصية وتوصلنا شرحيتا الدنيا سؤال شيء واحد معي سنة نصف جامعة ولا وصلنا وده وصل مرة جامعة أدي المطايد الشيء اللي كان وصل مرة كم أنا أيوة marka su'aasha waxay tahay xayla mushaarka haddii aad kiin qabto xilkaas xayla mushaarka beertiisa wadadaas
سنة ويبقى ما حصلش وحبوب القطة من فعل شو بس ده ناس لكن برضه ما يستخدمون ولنا تشكي وقص على الأرض هذا بقى مع الأرض الجامعة قال العلم هو ما يقضي عنده وش قال هو تشكي له هاي مشاهد في سبع خلاص اسمه لي على تشكي من السنة aad buu mahadsan yihiin ardaydii kala duwaneed iyo su'aalihii afartii arday baan jecelahay inaan musharaxiinta dib ugu soo laabto waxaan jecelahay arinta baska waxaan jecelahay oo Cabdullaahi weydiiyay inaan ka buuxo Cabdiqani bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaalkay maxamuud wuu mahadsan yahay waxaa jirta qorshayaal nooga degsan arinta baska sidaa daraadeed waxaan ku dabaqi doonaa baahida ardayda sidoo kale waxaan la kaashan doonaa waxaan u sameyn doonaa budget plan sidoo kale waxaan la kaashan doonaa ardayda kuliyadda culumta iyo maamulka baratay assalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay waxaan jecelahay musharaxiinta inaan u qaybiyo su'aalaha ayaan oo kamid ardayda waxay weydiisay maadaama qof walba uu sheegay musharax walba uu ka hadlay waxyaabo fara badan oo dhinacyo badan ma jirtaa wax taargad ah oo shakhsi ama magaranaysa musharax u degsan waxaan jeclahay su'aasha inaan siiyo maxamed bal jawaabta ma jirtaa wax taargad ah oo qaas ku oo aadays maanta waxaas oo biri markii halkaas ama ku dhamaato ama aad gudaha gashid la arki karo su'aal aad u muhiim ah waxaan rabaa qorshayaal badan aan ka leenahay laakiin qorshaha ugu horeeya waxa waaye maadaama aan ogahay in cabasho badan ka hayso oo arday saddex marayaan baska arinta baska ayaan rabnaa inaan awoodda ugu horeysa markaan doorashada ku guuleysano inaan awoodda saarno anagoo kaashanayna maamulka u xil saaran arrimaha baska iyo sidoo kale ardayda ayaga laftigooda anagoo ku bees garaynayna baahida jaamacadda ka jirta iyo baahida ardayda laftigooda haysta qorshahaas ayaa qorsheena koowaad ah qorshayaasha dambena insha allahu tacaala inaan dib ka raacin aan jecelnahay tahay maxamed waxaan jecelahay inaan xamdi siiyo xamdi waxaa jirta su'aal uu weydiiyey mid ka mid ah ardayda oo lagu magacaabo Ayuub wadada jaamacadda loo soo qaado magaalada ka soo baxda waa wada aad u nadaafad xun oo dhibaato badan baa jirta ma jirtaa marka wax qorshe oo kaaga degsan si wadadaas bilciida loo soo celin maadaama ay tahay goobtii indhaha ahayd ee jaamacadda loo marayay mahadu aad u mahadsan tahay waan u mahad celinayaa qofkana weydiiyay su'aashaas quruxda badan runtii waa su'aal mudan in la isweydiiyo ka xamdi ahaan aniga waxyaalaha ii degsan wali ma carabaadin mana sheegin laakiin waxaan jecelahay bal horta waxa ii degsan iyo waxa ay ka mataqaana ka qorshe ah bilicda inaan kala hormarino marka ugu horeysa waxyaalaha u muhiimka oo bilowga ah waa la shaqaynta ama abuuridda naadi loo dhan yahay laguna wada qanacsan yahay in aan soo dhiso waxyaalaha kale muhiimka waxa waa isku xirka ardada iyo maamulka waxyaalaha kale muhiimka ah barnaamijkaygan haddii aan ku guuleysto waxaa ka mid ah isku xirka ardayda iyo jaamacadda iyo deegaankaba sidoo kale xoojinta xiriirada kala dhaxaysa faracyada kale iyo xarunta dhexe sidoo kale dhinaca gabdhaha waxaan ognahay waxa haysata caqabado badan haday tahay adeega emergency care-ka ama daweynta ama waxyaalaha arday walba ku dhaca waxa laga yaabaa gabdho badan oo runtii sadkoodii dhamaaday inay jaamacadda dhigtaan oo mararka qaar meesha wax ku qabsadaan waxaan ku dadaalayaa anoona horay arrintaas mataqaanaa u galay anoon una soo taagin musharaxan ahayd inay helaan bal ardadaynu emergency care oo meel fiican ay marayso waxyaalaha kale waxaa ka mid ilaalinta agabka jaamacadda ay leedahay haday tahay mid guud iyo mid gaaraba sidoo kale qabashada asbuuca hidiya dhaqanka oo aysan lahayn jaamacadda xaruntan kaliya ay leedahay xarunta dhexe sidoo kale inaan keeno barnaamijyo workshopiska ama seminaaro ardada loo samaynayo si cilmigooda iyo wacyigooda hore loo soo qaado sidoo kale waxaa ka mid ah arrinta ugu muhiimsan dhisidda xafiis ay leeyihiin ardada runtii intii la soo maamulayay ma jirin xafiis ay ardadan ku shaqaynayaan naadiyaashii waxaan ku dadaali doonaa awoodana saari doonaa in la helo xafiis qalabaysan oo ay ku shaqeeyaan naadiga haddii aan ku soo baxo meeshaas waxyaalaha kale waxaa ka mid ah in la sameeyo research ay jaamacadda iyo ardadeeduba ay samayn doonaan sidoo kale in la helo garoon kubadeed oo ay ku ciyaaraan wiilasha iyo gabdhuhuba basketkiina isugu jira sidoo kale inaan u qalabeeyo library-ga ugana dhigo mid ay ardadu kaga bogan karaan inay wax ku akhristaan sidoo kale raadinta fasallada anoo meel walba u maraya ama dawlad aan la kaashado ama meel kale aan u kale sharax walba su'aashaas siiyo inaan uu ka jawaabo uu ku ekaado oo mawduuca ka bixin
waxaan jecelahay inaan siiyo hodan oo musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka ah waxaan mar raba codsanayaa musharax walba inuu toobiga ama su'aasha aan weydiiyo uusan ka bixin oo su'aalo kale uusan u gudbin hodan marka la soo dhawow su'aalaha ardayda waxaa ka mid ahayd qorshaha baska oo ardayda in arrinta baska ay aad ugu cakirin tahay oo ardayda ay ka wada waajinayso ma jirtaa wax qorshaha kaaga degsan mahadsan tahay ومahadsan yahay wariyaha iyo ardayga su'aasha soo gudbiyeyba arrinta baska oo arrinta soo laalaabatay oo arday badan ay su'aalo ka keeneen aniga ahaan oo isu taagay musharax guddoomiye ku-xigeen arrinka iga degsan baska waxay tahay inaan maadaama anigu aan dhigto kulliyadda dhaqaalaha waxa ugu horeeya markaan isdhaho musharax guddoomiyaha tahay igu soo dhacay waxay tahay budget ama qarash aan ku geli karo arrinkaas marka ugu horeysa naadigayga markuu soo dhismo oo aniga ku-xigeen haddii aan noqdo oo guddiga dhan la soo dhiso inaan kulmiyo guddiga dhan kulmiyana guddoomiyaasha kuliyadaha iyo arday aan markaas u xil saaray inay soo taxliiliyaan arrinka baska oo qarash ku bixi kara baska loona sameeyo inay soo ogaadaan shidaalka ama haddii uu jabo qarash ku bixi kara inay soo taxliiliyaan iyo sidoo kale budget balan u degsan asaga oo baska u gaar ah meel aan keenaba inaan budgetkaas u gaar yeelo baska waxaan jecelahay inaan siiyo aamino oo ayaduna ah musharax guddoomiye ku-xigeen aamino marka la soo dhawow waxaan jecelahay qof walba aan siiyana inuu kalmadda muhiimkeeda ka raaco maadaama waqtiguna uu gaaban yahay su'aaluhuna ay aad u badan yihiin ardo badan ay harsan tahay ma jirtaa wax taargad ah oo aad leedahay su'aashii waxa way mid ka mid ah ardayda ay weydiisay musharaxiinta bismillaah dabcan haa marka aan isku soo taagay xilkan ma ahayn qof taargad la'aan ah ama hadaf la'aan ah mana ahayn qof kaliya u socday meeshaas inuu waa guddoomiye la dhaho waxaan ahay shakhsi u taagan inuu ka miro dhaliyo maskaxdiisa hadafyada ku jira uuna jecel yahay inuu ardaydiisa ku deeqsiiyo fikirkiisa oo waxqabad dabcan taargadyadeedu way badan yihiin waxyaabo badan laakiin midka ugu weyn waxaa weeye in ay ardaydu huraan dhaqaale si ay wax u helaan soomaalidu waxay yaqaanaan intooda badan wax free ah adduunkana wax free ah lagama helo aniga bointigay ugu weyn oo aan ku difaacanayo maamulkayga haddii aan maamulkaas ku soo baxo waxaa weeyaan ardaydu inay huraan $1 sanadka oo dhan ayna nagula xisaabtamaan waxaan ugu qabanayn ay arkaan waana ka codsanayna sawdo bal waxaa jirtay su'aal saddexaad oo ay ardayda ka timid taasoo ah su'aasha waddada jaamacadda loo soo maro taas oo ay nadaafad xumo baahsani ka jirto ma jirtaa ka musharax ahaan wax qorshe oo kaaga digsan in waddadaas wax looga qabto mise qorshe kaaga ma jirto haa way jiraan anoo ku bilaabaya horta wax walbeetee waa in dhexda loo xirto gacmadu jirna waxbay ku goysaa dee ardayda jaamacadda uun keliya waddadaas wax kama qaban karto si kastay dhahaan maanta wax uga qabtana dee intay timirtooda way qaban karaan laakiin dee magaalada dhan bay ku xiran tahay in waddada jaamacadda loo hagaajiyo waayo ardayda hadda sanadkii dhaweytee naadigii ay hore sidii ay sameeyeen barnaamij fiican bay sameeyeen olole nadaafadeed bay u sameeyeen oo waddada u qaas ah intii tamartooda iyo karaankoodana way qabsadeen aniga ahaanna haddii aan xilkaa ku soo baxo waxaan rajaynayaa inaan meesha ka sii ambaqaado iyo sidii hore ay naadigii hore uga tageen inaan sii wado oo ay joogto noqoto maalmo u astaysan nadaafadda waddada ama nadaafadda jaamacadda aan sii sameeyo insha محمد يوسف waxaan weydiinayaa su'aal la xiriirta su'aasha badan waxa qusaysaa saddexda qof oo gudoomiyaha ku soo baxay maadaama badan authority ay leeyihiin ayagu jaamacadda waxa ka baxo faculty kala duwan oo 5 faculty baa ka baxo ama 6 faculty hadda lagu soo daray saasoo tahay bulshada aan ku dhex noolnahay kama muuqato ardayda waxay baranayaan maalin walba buug baa soo qaataa jaamacadda la yimaada ardaygii wax baranayay iyo kii banaanka joogay waxay kala duwan yihiin farqiga ma jirto marka gudoomiyaha soo bixi doona
doona muxuu qorshaha kaga degsan in lagu celiyo wuxuu ardaygaan bartay degmadii iyo deegaankii waa anfac shukri cabdi waxaan rabaa inaan gudoomiyaasha ama musharaxiinta gudoomiyaasha aan weydiiyo su'aal ah si gaar anigu waxaan ahay kulliyadda caafimaadka waxaan u baahan inta badan waxa halkan markaan jaamacadda iyo loo fiiriyo iyo magaalada inta isku jiraan distance aad u dheer bay isku jiraan waxa u baahannahay mararka qaar waxaa dhacda in arday jaamacadii ka mid oo kale tusaale ahaan in emergency case uu ku yimaado halkan waxaan ku haysanaa dhaqaatiirtii nerskii iyo dhammaan tiimkii caafimaadka oo dhan way ku dhan yihiin aqoon ahaan ayagoo diyaarsan laakiin ma haysano qalab aan qofkaas ugu gargaari karno oon gargaarkii degdega ugu fidin karno marka ma jira musharax noo ballan qaadi kara isagoo aysan ka ahayn inuu maaragtay sheege uu keliya macnihii sheege uu xayisiis camal uu ku soo galo oon hadhow toole u soo raacan karno oon maaragtay sheege hadhow toolena kula xisaabtami karno noona ballan qaadaya inuu adeega degdega ahaa gargaarka degdegka lagu fulin lahaa ardayda ama qof kasta oo jaamacadda ka mid oo u baahda aan ugu fulinno oo aan macnihii sheeg maadaama aqoontii aan hayno qalabkii aan ugu shaqayn lahay noo keeni kara oo noo soo kordhin kara waana mahadsantihi wasalaamu calaykum bacdi salaam anoo soo gaabinaya hadalkayga su-aasheeda waxaan rabaa dhammaan musharaxiinta goobtan wada fadhida hadday ahaan lahaayeen guddoomiye iyo ku-xigeenadoodaba magacaygu waa ifraax suul axmed ka mid ah ardayda kuliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamiga su-aasheeda haddaan u galo waxay tahay maadaama aan nahay ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ahna dadka deegaanka ku nool kuna dhashay waxna ku bartay ayadana hadda ee deegaanka ku taalo maxaa idinkaaga qorshaysan oo isku xir ah deegaankii dadkii ku noolaa iyo ardayda jaamacadda maadaama aan nahnay anagu dadkii yacni deegaanka ku noolaa oo ardana dhiganaysa jaamacadda markii la fiisho run ahaantii wax xiriira kama dhexeeyaan annaga iyo dadka deegaanka waxyaalo badan baa dhaca ardada haddii is abaabisho waxna kama bedasho oo yacni waa laga aamusaa marka waxaa jira ardadu waxay leedahay hogaamiyaal bay leedahay hogaamiye walbana markuu rabo inuu xilka qabto wuxuu sheegtaa waxqabadyo marka maxay tahay idinka hadafkiina ama qorshaha idinkaaga dhegsan inaad yacni aad ka qaban karaysaanba deegaanka iyo ardayda isku xirkooda maxay tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad u mahadsan yihiin ardadaasi ilaa 4 arday weydiisay oo ardaydii u dambeysay oo barnaamijka ka qayb qaadanaysay waxaan jecelahay inaan cabdiqani ku bilaabo su'aalaha kala duwan ee ardayda ay weydiisay cabdiqani soo dhawow mar kaleeto su'aasha koowaad waxaan weydiiyey sharmaarke oo ka mid ah ardayda jaamacadda su'aashaasna waxa weeye sidee cilmiga jaamacaddani yaalla oo ardaydu ay barato bulshada deegaanka uga soo dhex muuqan karaa door intee la eg baysan aad ka qayb qaadan kartaa bismillaahi raxmaani raxiim wariyo sare mahad aad baa u mahadsan tahay su-aashaas haddaan kaga jawaabo waa sax kuliyo badan baa jira aan ka bilaabo kuliyadda caafimaadka waxaa noo qorshaysan in kuliyadda caafimaadka waxyaalaha ay jaamacaddu ku baratay ee bulshada dhex geyso sidoo kale ay booqato kaamamka aanu u samayno waxyaalo cusub si tusaaloo kale blood grouping oo kale waxaa jira dadka ma oga badankood dhiigooda noocuu yahay hooyooyinka dhiigbax bayna badankood u dhintaan degmada in blood grouping aan u samayno sidoo kale in kuliyadda shareecada islaamka iyadana aan ku dhiirino oo aan samayno urur aad baa u mahadsan tahay maxamed baan jecelahay inaan asagana xaggiisa wareeg maxamed ardayda waxay sheegeen in jaamacadda gudaheeda ay joogaan dhaqaatiirtii kalkaaliyaashii iyo ardayda waxbarato tiim caafimaad oo dhammaystiran adiga dhinac walba leh hase yeeshee aysan jirin maanta haddii arday wax gaaraan aan waxba loogu qaban karin xaruntan ama wax daawo ama garanaysaa gargaara loo samayn karin marka haddii aad xilkan guddoomiyaha ku guulaysatid ma jiraa wax qorshe ah oo kaga qorshaysan in xarun caafimaad aad ku soo siyaadaysid xaruntan su-aal aad u muhiim ah waa u mahad celinayaa ardayga ina weydiiyey su-aashaas waxyaabaha aan na soo kiciyey qodobyada ugu muhiimsanaa qodobyada aniga musharax inaan noqdo ii soo taagay ee ka mid ahayd inta dadaalkayga haddii xilka aan ku guulaysto oo aan xaqiijinaya insha allahu tacaala waxaa ka mid ah inaan dhisno xarun si loogu qabto ardayda degdega markuu imaado oo kale emergency-ga la geeyo oo annaga noo gaar ah haddii taa aan ka gaari weyno inaan contract la galno isbitaallada degmada ku yaalla isbitaal ka mid ah annagoo kaashanayna maamulkeena insha allahu tacaala waa tahay aad buu mahadsan yahay waxaan jeclahay inaan xamdi siiyo xamdi marka leeto
waxaa jirta in su'aasha ardayda ifraax ay ka dhawaajisay ee ahayd in aysan jirin isku xirnaanshiyo bulshada iyo ardayda jaamacadda ah oo magaaladan ay inta badan ka dhacaan dhacdooyin aad u fara badan oo aad u qaab daran inta badan ardaydii oo ahay dadka indhaha deegaanka u ahaana aysan door muuqda ka qaadan ma jirtaa marka qorshe isku xir ah oo bulshada deegaanka iyo ardayda ah u dhaxeeya mahad waa mahadsan tahay su'aashaada quruxda badan walaasha ifraaxna su'aashayna weydiisay aad baan ugu mahad celinaynaa runtii marka la dhaha caabudwaaq jaamacadda meesha ay joogtay 2 sano ka hor maanta ma joogto juhdi iyo dadaal badan oo la geliyay waxaa moodaa maanta marka caabudwaaq tagtid in laga yaqaan jaamacadda xilli waxaa joogtay ama jirta jaamacadda meel ay ku taalo iyo magaceeda iyo waxay tahay san ka dhaadhacsanayn alxamdulillah aniga xamdi ahaan waxaan ka mid ahay dadka madaxda u ah dhalinyarada degmada oo maamulkooda ku jirta juhdi badan baa u sameynay ka hor qorshahan inaan barno jaamacadda waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan isku bari karnana waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo midnimada nabadda horumarka degmada maamuladii hadda la doortay oo gudoon muxiidiin iyo mataqaanaa gudoomiye ka horeeyaba waxay ahaayeen labadii nin oo awoodda ugu badan aan gelin haddaan dhalinyarada oon keensanay meeshaas runtii waxyaalaha u keenayna waxay ahayd annaga jaamacad ahaan dhalinyaro ahaan arday ahaan inay magaaladii isku xiran yihiin jaamacadda marka waa mid ka mid ah qodobada aan ku duulayo ayadana waxay moodaa in horey wax looga soo qabtay oo aysan bilow ahayn laakiin la xoojiyo waxyaalaha dambe oo imaanaya maadaama caabudwaaq maanta city council ay yeelatay oo loo baahan yahay GPLG mashruucyada imaan doona inay ardadan looga faa'iideeyo shaqo abuur u noqoto jaamacadda iyo degmaduna sida isugu xirmato santahay xamdi waxaan jecelahay markaana inaan siiyo hodan waxa waaye su'aashii labaad oo aan weydiinayo musharax maxamed baan jecelahay inaan ku weydiiyo oo weydiisay anfac waxay ahayd magaalada iyo jaamacaddu waxay isku jiraan distance aad u ballaaran ama dhowr kiiloomitir mana jirto xarun caafimaad oo ku dhex taala jaamacadda maadaama ay joogaan jaamacadda dhaqaatiirtii iyo ardayda caafimaadka barta intaba ma jirtaa marka qorshe gudoomiye ku xigan haddii aad ku guulaystay xilka kaaga degsan in xarun caafimaad la hirgasho mahadsanid wariye mahad anfacna way mahadsan tahay waxay tiri xarun caafimaad ma loo heli karaa jaamacadda haddaa gudoomiye ku xigan ku soo baxo horta annagu intayadan hadda waxaan soo sharaxnay waxa weeye inaan ma ahan wax kasta aan qaban karno oo wax kasta aan intayada samayn karno kaliya annagu waxaan idiin samaynaynaa idiin abuuraynaa jawi wax ku qabataan ama xaalad meel aad ka bilowdaan waxaa la rabaa inaad qabataan oo shaqada fulisaan waa ardayda marka xigta adaa usoo laabto kaaga degsan yahay balaan inaad samaysid xarun caafimaad jaamacadda horta naadiga ardaydu ma lahan budget ay wax kasta ku samaystaan ama ay xarumo ama meel ay ku furfurtaan xarun caafimaad oo loo heli karaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed haddii ay ka wada shaqeeyaan naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda jaamacadda dhigata iyo waliba haddii ay noo sii fududeeyaan madaxda jaamacaddu waxaan dhihi karaa waa heli karnaa xarun caafimaad naadiguna waxay leeyihiin inay dadaal u galaan inay xarun caafimaad sameeyaan laakiinse ma dhihi karo maanta waxaa budgetka meel noo yaalla aan igu samaynayno xarun caafimaad aad baa u mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan markaan aamino mid ka mid ah ardayda su'aashii uu soo dhigay waxay ahayd in xarunta jaamacadda ay ka socdaan dhismayaal galaasyaduna ardada ay ku yaryihiin haddaad ku guulaystay xilli gudoomiye ku-xigeenka ma jirtaa qorshayaal inaad ka qayb qaadatiin ama door intee leeg baad ka yeelan kartaa طبعا ها waxaan u soo istaagayba waxa weeyaan in aan qaado mas'uuliyadda ardayda hadii ay maaragtay ii gartaan in aan qaado ardayga gudoonka naadiga ardayda ahna waajibkiisa koowaad waxa weeyaan inuu baahida ardayga uu ku xiro maamulka markaas jooga oo uu ugu adeego sida ugu hufan ardayda waxa laalay waxay u baahan yihiin uu gudbiyo weeyaan shaqadiisa ugu weyn marka musharaxiintu markay xil raadinayaan waxay dhaan waxa qabanayna badan bulu ka dhigaynaa wax walba ay sheegaan laakiinse ina wax beena oo maanta aad qabanay halkaan aad ka sheegto waxa kaaga muhiimsan wax yar oo aad qabanaysiin inaad sheegtid marka sida caadiga ah anagu waxa hadii aan xilkaas ku guuleysano noqonaynaa furihii ama isku xirkii isku xiraayay maamulka iyo ardayda
oo uga faa'iideynayay inay maamulka iyo dadka xilka haya ay ugu dhisi karaan jaamacadda baahideedana ay u gudbin karaan inaan noqono dad ka shaqaynayay intaasaa u ballan qaadaya laakiin ma dhahay maanta waxaan dhisayaa guryo waaweyn iyo galaasyo ay idin dhisayaa ma dhihi karo waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii waxaan jecelahay musharax walba hal su'aal baa weydiinaya su'aashaas sidaas ayuu ka dhaho haddaan u hormaro sawdo oo haatan mikrofoonka sawdo waxaa tahay musharaxa u taagan xilka waxaa kula tartamaya arday ama gabdho bosishikaas ayaguna jecel oo sidaa u mudan tahay ayaguna u mudan haddii lagaa guulaysto muxuu yahay qorshahaaga ma inaad la shaqaysid baa mise inaad geesgelisid haddii aan su'aasha jawaabteeda kuu soo bandhigo horta gar laba nin kama wada qosliso inteenaan maanta meesha fadhida mid uunbaa xilkaas rabbi subxaana wa tacaala u qoray haddii aniga la ii qorayna waa alxamdulilaah haddii walaashay loo qorayna waa alxamdulilah dee labadeena isku meel baan geediga u wadnee isku meel baan geediga ku furayna ugamana xumi hadday soo baxdo waana ku dhiirigelinaya aad baa u mahadsan tahay waxaan jecelahay musharaxiinta guddoomiyaha inaan u soo laabto xamdi cabdisalaam baa jecelahay inaan siiyo xamdi waxaad marka laga hadlaayo doorashada waa tartan furan oo guliyo guuldarraba leh ka musharax ahaan haddii lagaa guulaysto ama musharaxiinta dhigaya ay kaa guulaystaan kaa go'an tahay inaad la shaqaysid mahada waa mahadsan tahay guul ka hor iyo guuldarro ayaan la shaqaynayay jaamacadda una shaqaynayay xamdi ahaan haddaan guulaystana shaqadii aan u soo istaagay oo niyaddeedu ku jirtay baan sii qaban doonaa haddii layga guulaystana sidii shalayta aan ugu taagna anoon cidna idirsan wax gaarana laygu sin baa ugu shaqayn doonaa laakiin waxaan rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba oo codkayga iyo qabadkayga iyo soo bandhigdeeda maqashay kole waxaan filayaa inay iyagu maanta go'aanka cod gacantooda ku jirto ciday dooranayaan iyo ciday aadayaan ba aysan ku qasaari doonaan maxamed baan siinayaa maxamed maxaad filaysaa adigu ka musharax ahaan meeshaan inaad kala tegi doonto maalinta beriya kolay filasho markii la dhaho qof walba wuxuu jecel yahay guusha inuu qaato laakiin ka aniga ka musharax ahaan waxaan aaminsanahay waxay tahay tartan haddii la galo qofun baa guulaysanaya qofkaa guulaystay igama duwan anoo guulaystay sida anigu waan u shaqayn lahaa anoo la shaqaynaya insha allahu tacaala saaxiibkii soo bixi doona cabdiqan maxaad ka filanaysaa guul iyo guuldarro midda kale haddii lagaa guulaysto musharaxiinta dhiggaa kaa guulaystaan ma laga yaabaa inaad la shaqaysid mise waa sidii musharaxiinta siyaasiyiinta aad gelgelinaysaa walaalkiin mahad aad baa umahadsan tahay su-aashaadan waa su-aal muhiima waxaa iga go'an inaan la shaqeeyo haddii uu saaxiibaday guulaystaanna waa anoo guulaystay meeshu waxa loo wada imaadayna waa danta ardayda in laga shaqeeyo oo loo tartamayo qof walba orday inuu ardayda u shaqeeyo waan u shaqaynaynaa diyaar baa unahay natiijo walba ka soo baxdan waa aqbalayaa waxaan isku rajaynayaa aad baa umahadsan tahay musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenka aan jecelahay inaan labadaha iyaaday aan siiyo weli waxaan jecelahay hodan bal maadaama doorasho adaga geli doontid maalinta beriya sanduuq iyo dhowrka boqoloo ardayna ay ku sugayaan maxaad filaysaa waa mahadsan yahay wariyuhu aniga haddii laga guulaysto haddii aan guulaysto waxaan diyaar u ahay inaan markasta ka shaqeeyo naadiga ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed waqti xaadirkaana waxaan xubinka ahaa naadiga hadda jooga oo kuliyaddeeda waxaan ka madaxa maaliyadda horeyna anoon ka mid ahayn naadiga oo aan ka shaqaynayay haddii hadda laga guulaystana halkaa marka hore uma imaan in aan leeyahay guusha laakiin waxaan u imid inaan aan soo qaato guuli guuldarraba naadiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaan ku guulaystay haddaan ka haraba waxaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo horeyna waa la shaqaynaya aad baa umahadsan tahay aamino faarax baan jecelahay oo guntii gabagabadii aamino bal maxaa adigu filaysaa berri hadduu alayno masraxa markooda horta waxaan filayaa guul insha allah inaa maaragtay codkiina aad siisaan ay doorataan kalsoonidiinana aa maaragtay igu aamintaan xilkaas waxqabadkaygana aa ula xisaabtantaan aniga waxaa adkaynayaa inaa waxqabadkayga ula xisaabtantaan ma raba aniga intaan meeshaas tago inaan meeshaas aan ka tago inoo dhow aad wax iga tabanaysaan sida hore u soo sheegayna 3 bilooda walba waxaan qaban doonaa madan looga hadlayo uguna weydiinaya maamulka markaas jooga haddii aanu ka mid ahaado waxay qabteen oo wixii ka dhimanaa markaas ay ku dhammaystirayaan marka aniga haddii aan guulaysto waa sidaan rabay waan u shaqaynayaa jaamacaddayda haddii aan guulaysan waayana waa la shaqaynayaa naadiga markaas soo baxa waan horumarka jaamacaddeedana wax walba iiga muhiimsan aad baa umahadsantihiin dhammaantiin waa idin mahadcelinaynaa aad baa umahadsantihiin dhammaantiin waan idin mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad uga qayb qaadateen barnaamijka saaxiibayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkayaga dood wadaagga ahaa aynu u qabanaynay musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo weliba xilka guddoomiye ku-xigeenka
madashani waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ay isugu jiraan maamulka sare ee jaamacadda barayaasha iyo waliba ardayda ay musharaxiinta maanta meeshan ku doodaysay ay ka sugayaan codka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Mahad Bashir Ismaan waxaad kala socoteen warbaahinta Sooyaal waxaa sidoo kale doorka ugu weyn barnaamijkan ay qaatay soo qaban qaabiyay xafiiska arrimaha bulshada ee jaamacadda ummadda iyo waliba guddiga ardayda ee doorashadani qaban qaabinayay barnaamijka dhinaca kaamirada waa Yaasir iyo waliba Mahad Dhukane inta barnaamijkan mid la mid ah kulmayno waa guud ahaan bahda Sooyaal oo idin leh nabadgelyo waxaa dilayo qarribay dilaalka shisheeyaho